haddii lagu yidhaahdo xasuuso qaar ka mid a khaladaadka xilligii kugu horraysay aad baranaysay luqad qalaad, maxaa kugu soo dhacaya? In badan oo inaga mid ah waxay xasuusanayaan inay ereyada ugu dhawaaqi jireen si khaldan ama ay khaldi jireen naxwaha. Ka hor inta aanu gudagelin barnaamijkeenna, like saar page-ka oo share garee fiidiyowga. Mahadsanid. Sagaalkan khalad iska ilaali marka aad baranayso luqad kugu cusub. Khaladaadka in lagu dhaco oo ay badan tahay marka la baranayo luqad cusub. Inta badan dadku waxay aaminsan yihiin in khaladaadkaas aanay lahayn khatar badan. Dhanka kale markaan eegno, waxaa jira khaladaad dhab ah oo haddii aad ku dhacdo aad ku fashilmayso barashada luqad cusub. Waxaana ka mid ah khaladaadkaas: nambarka koowaad, inaad ka baqato ku hadalka luqadda. Waxaa dhici karta in ku hadalka luqadda qalaad uu yahay mid adag oo dhib badan. Waa siday aaminsan yihiin dadka qaar, laakiin xaaladdu way ka duwan tahay sidaas. Marka aad aragto qof ajnabi ah oo ku hadlaya luqadda waddan, waa aad ku farxaysaa. Sidaa darteed, dadka moodaya marka ay luqad ajnabi ah ku hadlayaan in laga maadiysanayo waa fikir khaldan. Laakiin mar kasta oo aad isku daydo wax, waayi maysid cid kugu garab istaagta. Nambarka labaad, khalad qaadasho la'aan. Marka ay dadku baranayaan luqad cusub, waxay aaminsan yihiin in khaladku yahay mid aan la aqbali karin, isla markaana ay waajib tahay in wax walba loo sameeyo sidii loo baahnaa. Waxay eegayaan oo qura khaladaadka ay galeen, halkii ay eegi lahaayeen waxa ay sameeyeen iyagu. Waxaa lagama maarmaan ah inaad khaladaadkaaga aqbasho oo aad ka barato wax. Nambar saddex, ereyo cusub oo la iska barto. Marka aad ereyo cusub baranayso oo aan liis gooni ah la xiriirin, in aad xasuusato way kugu adkaanaysaa. Marka dambena waxaa ka dhalanaya natiijooyin daciif ah, halka dadaalkaagii uu u muuqanayo halbacaad lagu lisay. Waxaad samaysataa istaraatiijo cad marka aad ereyada xafdinayso. Liis gooni ah, tusaale ahaan, ereyada cunno karinta ku saabsan mar walba xifdi. Kuwa ereyboodka khuseeya ku qoro meel gaar ah. Kuwa xayawaanka sidoo kale. Sidaas waa habka ugu fudud aad ku baran karto ereyada cusub. Nambarka afraad, haddii waddada aad luqadda ku baranayso ay kaa xumaato, barashada guud ayay saameyn ku yeelanaysaa. Marka waxaad nacaysaa luqaddii oo inaad barato aad mar kale ka fogaanayso. Nambar shan, doorashada waddo keliya oo waxbarasho. Dadka qaar waddo keliya ayay raacaan marka ay dadku luqad cusub baranayaan. Marka aad naftaada hal waddo oo keliya aad barto, si sahlan aad ugu caajisi kartaa. Isku day inaad suurtagal tahay inaad waddooyin kale ku barato luqadda oo aad ku baran hal waddo oo keliya. Tijaabi casharo luqadda ah, bugaagta naxwaha, website-yada luqadaha. Sidoo kale daawo musalsalada luqaddaas. Lambarka lixaad, dagaal xooggan oo aad mar qura saarto barashada luqadda. Inaad gaarto go'aan aad ku baranayso luqad cusub waa arrin soo jiidasho leh. Sidaa darteed, bilowga hore waxaad isku dayaysaa inaad bugaag badan soo iibsato, maalintii dhowr saacadood aad ku dadaasho barashadeeda. Isbuuca koowaad, marka uu dadaalkaagu marayo halkii ugu sarreysa, waxaad arkaysaa adigoo isbuuca labaad keenay hoos u dhac oo aad ka caajisayso inaad hal saac kaliya xitaa akhrido bugaagta. Taasina waxaa sababaya xawaaraha xoogga leh aad ku bilowday barashada luqaddaas. Waxaa caadi ah inaad xamaasad weyn dareento xilliga aad luqad cusub bilaabayso, laakiin ha cantuugin mar keliya barashada luqadda cusub si aad ugu caajisin oo aad hoos u dhac u keenin barashada luqaddaas. Nambarka toddobaad, dhageysiga oo kugu yar. Isku day inaad luqadda dhageysato in kugu filan. Arrintan waxay kaa saacidaysaa ku hadalka iyo ku dhawaaqida ereyada iyo hagaajinta. Nambar sideed, in mar keliya aad isbuucii dhigato. Inaad Khamiis iyo Jimce kaliya dhigato isbuuca, inta ka soo hartayna aad seexato, sax ma aha. Waxaad u baahan tahay maalintii 10 daqiiqo oo qura inaad barato luqadda. Laakiin haddii aad maalin ama 2 maalin oo keliya barato isbuucii, ma gaadhaysid hamigaaga ah barashada luqadda cusub. Nambarka sagaalaad, inaad si sahlan isku dhiibto. Inta badan markay dadku baranayaan luqad cusub, kadibna ay ku adkaato, waxay u badan tahay in uga hadho si degdeg ah. Sidaa darteed, isku diyaari duruuf kasta oo ku soo wajihi karta. Naftaada u layli inaad xaalad walba la qabsato. Ugu dambayn, adigu ma xasuusataa khaladaadkii kaa dhacay markii aad baranaysay
luqad qalaad ama luqadaadii cusbeyd ee kugu horreysay. Intaas ayaan kusoo koobaynaa barnaamijkeenna. Waad ku mahadsantahay daawashadaada.